Hi guys, assalaamu calaykum. Waniga Cabditax Ibraahima xagga nagala socotaana waxa weeye Somaltech isku soo noqod fiican. Haddaad ku cusubtay channelka fadlan waxaan ka codsanaa inaad subscribe saarto sidoo kalena aad nagu soo biirto. Maanta waxaan ka hadli doonaa cashiradeeni maxay ahaydey xiriirka inoo soo ahaa ka hadlayay maxay waxa loo yaqaanay computer hardware-ka ama qalabada computer ka kooban yahay. Maanta waxaan ka hadli doonaa waxa loo yaqaano GPU macnaheedu ka duwan yahay CPU-ga. marka GPU saadka saxan waxa la soo gabay graphics processing unit-ka marka waxa inoo qabanaya iyo waxa uu yahay ayaan maanta eegi doonaa. casharkan waa cashar kooban oo ka hadli doona maxay wax loo yaqaan graphic processing unit-ka oo noqonaya shayga ku sahla maxay ahayd markaad u baahan tahay inaad creation ku samayso ama aad samayso wax loo yaqaan 2D ama 3D images-ka oo macnaha wixii u baahan ama la taxalluqa wax loo yaqaan images-ka ama image qurux badan ku soo baxa waxay ku xidhan tahay hadba GPU-ga ama maxay graphic processing unit-ka aad haysatid ama nooca uu yahay. Okay xagan ka arkaysid wuxuu sheegayaa laba mid buu sheegaya mar waxa weeye waa integrated wax loo yaqaan ama integrated ayuu ku noqonayaa graphic-kaagu macnaha integrated kuna shay waxa weeye waa shay kala macnaha maxay lagu integrate gareeyay ama maxay ahayd shay badan oo macnaha hal small chip laga dhigay ee loo yaqaan integrated ama integration process-ka loo yaqaan. marka wuxuu ku sheegayaa inuu noqonayo maxay ahayd graphic processing unit-ku mar uu noqonayo integrated macnaha wuxuu noqonayaa mid not separated midaan madax banaanin ayuu noqonayaa oo waxa uu la shaqeynaya ama ku xidhan yahay CPU-ga iyo maxay ahayd motherboard-ka. sidoo kale wuxuu noqon karaa mid loo yaqaano maxay ahayd oo dedicated oo loo yaqaano video card oo macnaha ka madax banaan motherboard-ka iyo CPU-ga. macnaha wuxuu u ogolaanayaa CPU-ga inuu shaqooyin kale uu ku qabto halkii maxay ahayd uu CPU kula shaqeyn lahaa maxay ahayd GPU-gaaga. marka labadaas ayuu noqonayaa maxay ahayd waxa loo yaqaano graphic processing unit-ka ama shayga inoo saamaxaya markaan doonayno inaan samayno image maxay ahayd ama rendering samaynayno ama image aan doonayno soo saarno 2D ha noqdo ama 3D ha noqdo shayga ku saamaxaya inuu ama ku speed gareynaya speedkiisa kor u kordhinaya wuxuu noqonayaa GPU-ga. hadba computerku ka GPU fiican yahay ayuu speedkiisu ka sareeyaa si uu u soo saaro maxay ahayd images. marka laba mid buu ku noqon karaa sida aad maxay ahayd casharka ku arkaysid haddaynu soo koobno mid wuxuu ku noqonayaa integrated macnaha mid shay kale la shaqeynaya ama built-in ku shay kale ku samaysan sida CPU-ga ama motherboard-ka ama wuxuu ku noqon karaa mid dedicated oo ka madax banaan maxay ahayd motherboard-ka oo wuxuu noqonayaa piece of hardware macnaha hardware gaar ayuu ku noqonayaa oo loo yaqaan video card. marka video card-ku wuxuu noqonayaa cashar intan ka balaaran marka next lesson-ka ayaan eegi doonaa video card-ka waxa uu noqonayo maadaama uu noqonayo wuxuu noqonayaa mid separated oo ka madax banaan maxay ahayd CPU-ga ama motherboard-ka. xaggan saad ka arkaysid waxa inoo yaala maxay ahayd xaggan sawir sheegaya GPU-ga. marka GPU-gan waxa weeye waa mid aan lahayn heatsink-na waa something like fanka oo kale waxa weeye waa shay oo kale maxay ahayd fanka ama marwaxad oo kale ayuu shaqeeyaa heatsink-gu oo ku saamaxaya shayga markuu kululaado inuu maxay ahayd qaboojiyo. haddii maanta casharkeena aan soo wada duubno waxaynu ka hadalnay GPU-ga oo ku saamaxaya inaad speed up ku samayso ama kor aad u qaado waxa loo yaqaan maxay ahayd creation of both 2D and 3D images-ka marka samaynaysid in aad kor u qaado ayaynu ka hadalnay maanta. marka casharkan wuxuu noqonayaa very important ayuu ku noqonayaa inaad ogaatid waa sababaha keenaya ama maxay ahayd sababaha ka midka aad ku dooran karaysid maxay ahayd computer cusub markaad iibsanaysid. fadlan haddii casharkan aad ka heshay iyo casharo kaloo lamida waxaan ka codsanaa inaad asxaabtaada la wadaagtid si iyaguna uga faa'iidaan channelkana ka soo beertid. waa mahadsantihiin.